أرضي بانها يو أرضي بانها يو وبحي ودن كانها يو أرضي بانها يو أرضي بانها يو وبحي ودن كانها يو وحان ورديا ورديا دكسي ذو آذان وحان ورديا ورديا دكسي ذو آذان إينان أقن كورسالود الكيغا أنفعي إينان أقن كورسالود الكيغا أنفعي مصطفى الحمد لله لما أنت وضع عفمات قبنا طالب العلم وإنه دمانتين أرضي معلم وحاويا وحنون بدن العلم كورسونه ما أنتنا وكبس درنته ومالين في عن وحنا شوقا شيخنا ومركي لبعض أو يمادو دكسنا الفرقان وركفا إنسان سنة كهورة وإني كفا إنساني runtii oo kelmado dhaxalgal oo aad iyo aad u wanaagsan baynu sanadkii hore qaadanay sanadkan waxaan rajeynayaa insha Allah inaad gurudaan oo aad weelaysaan markaasi wacdiga diiniga ee sheekhu inoo soo jeedin doono hadii la yiraahdo ardayna waxa loo baahan yahay inay aamuska ku dadaalaan isla markaana ay aad u dhageystaan nuxurka iyo khudbada sheekha sheekhan ku soo dhaweynaya ku soo dhaw sheekh alaykum bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. سؤال ما يدويديه حاربتان انا نغطان يا هرمود كدلك يا دلك اشكر احسنتي واحد شرين صحابي او دلنيرة oo kamid ahaa dhalinyaradii nabiga calayhi salaatu wasalaam u khidmayn jirtay ama u shaqayn jirtay saxaabo badan oo yaryar ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam khidmadiisa ka qayb qaadan jiray waxaa la odhan jiray rabiica ibnu kacb al-aslami rabiica ibnu kacb al-aslami weliba wuxuu ka mid ahaa saxaabada aan markaa waxba haysan ee soo hijrooday saxaabada soo hijrooday badh baa jiray ama quraysh ka yimi ama ghafaar ka yimi ama juhayna qabaa'ilkii carbeed oo diintooda la soo baxsaday oo madiine yimi waan madiinana guri iyo meel ku hoydaan iyo waxba toona ku haysanin marka waxay seexan jireen masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam xagiisa dambe ahlu sufa baa la odhan jiray rabiicata ibnu kacb al-aslami waxaa la tilmaamaa inuu qoladaa ka tirsanaa wuxuu ku dadaali jiray oo kamid ah waxyaabihii uu qaban jiray nabiga inuu u khidmeeyo calayhi salaatu wasalaam ilaa xad la yidhaahdo habeenkii wuxuu isku dayi jiray inuu seexdo albaabka guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa si nebigu markuu sanqadhe uu isiraao dabadda uu soo baxayo uu weysada iyo kabaha iyo ba wixii uu u baahan yahay uu ugu diyaariyo dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo baxo wuxuu arkaa wixii loo diyaariyey uu diyaariyeyna saxaabiga dhalinyarada ee yar ee la yidhaahdo rabiica ibnu kacab al-aslami nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa sal waxay weydiiso adigoo faqiira oo aan waxba haysan hadduu nabigu ku yidhaahdo wax weydiisa maxaad weydiisan lahayd geel ari xay daar يعني dadku inta badan marka la yiraahdo wax weydiisan niman acraaba bari nabiga uu yimi calayhi salaatu wasalaam wax weydiiso awran fuuliye ribu yiri aan maalo laakiin saxaabadu nabigu rabbeeyay calayhi salaatu wasalaam adduunkan oo dhan waxay u arkayeen wax yar inuu yahay qofka bini aadamka ahi adduunkan isagoo qaawan buu dhashaa mara yar lagu qabtaa isagoo mara yar lagu duuduubayna uu ka tagaa waxba kala ma tago waxaa daar la dhisay iyo magaalo la dhisay iyo waxba kaa raaci maayaan mara yaroo cad inta lagugu duuduubo ayaa xabaal lagugu ridayaa dabeetana markuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wax weydiiso wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiisanayaa muraafaqataka fi ljanna
jannada inaan kugula saaxiibo jannada inaan rafiiq kugula noqdo ayaan ku weydiisanayaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aw gayra dalik buu nebigu yidhi taa waxaan ahayn may weydiisanaysaa yani wax kale may wuxuu yidhi huwa daak kaasoo qura ayuunbaa anigu dalabkaygu yahay yani ninkan dalabkiisu adduunka oo dhami uu la yariyey adduunku wax weyn uma arka inuu yahay xadiiska riwaayaadka qaarkood waxay leeyihin wuxuu yidhi aan soo tashado dabeetana mar dambuu ku soo noqday markaasuu sheegtay waxa uu doonayo markaasuu yidhi yaa kuu soo sheegay markaasuu yidhi cidna ee adduunkaan arkay inuu wax yar yahay saa daraaddeed waxaan door biday muraafaqataka fi ljanna waa hami aada u weyn jannadu waa intay leegtay qofka uu janno yari intuu leeyahy hadi dunya wacashra amhaaliha adduunkan aynu ku nool iyo toban laabkeed ka waran adduunkan iyo toban laabkii qofka helaya ma wuxuu ka fakerayaa markaa inuu ku siisto dhowr daarood ama dhowr reef oo adhiya ama dhowr geela wuxuu door biday taa nolosha abadiga ee caynkana nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu saxaabadan ku rabeeyey inay hamigaa sare yeeshaan waxaa jirta qiso kale oo nebigu soo wariyey calayhi salaatu wasalaam islaan reer banu israa'iila nebi yuusuf markuu geeriyoonayey ayuu wuxuu ku dardaarmay reer banu israa'iil hadday ka hijroodaan meesha tan in meydkiisa masar laga qaado markuu sidaa ku dardaarmay cahdigii nebi muuse ee la hijroonayey ayay is idhaahdeen hijrooda waa lumeen markii dambea la yidhi dardaarankii nebi muuse nebi yuusuf baa la ilaabay oo uu yidhi haygaga tegina meydkayga meesha ka qaada dabeetana waxa la yidhi yaa garanaya meeshuu ku aasan yihi islaam baa la yidhi habartaasunbaa garanaysaa islaantii baa la raadiyey islaantii waxaa la yidhi nebi muuse wuxuu leeyahay ii sheeg halkii uu ku aasan yahay nebiyullaahi yuusuf waxay tihi shardigaygoo la oofiye mooyaane sheegi maayo waa maxay shardigaagu baa la yidhi muraafaqatuka fi ljanna bay tihi inaan jannada kugula rafiiqaan rabaa jannada inaan galo oo ad ilaahay ii weydiisa subxaana wa tacaala yani dadkii hore ee muslimka dhabta ahaa waxay ahayn dad hamigoodu yahay sidii ay janno u geli lahaayeen ninkaa dhallinyarada ah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay markaa acinnii calaa nafsika bikahrati sujuud wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad rabto haddaba inaad jannada halka sare ka gashid oo dee xagga nebi maxamed jooga jannada calayhi salaatu wasalaam waa meelaha ugu sarreeya haddaad dhulkaa wax ka rabta buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam iyaanad aniga rafiiqi la noqoto haddaba aadna la kaale shaqaduu nebigu u diray waa maxay waa bikahrati sujuud igu kaalmee naftaada inaad maxay sujuudda badsatid sujuudda inaad badsato macnaheedu waxa weeye inaad salaada badsatid salaada laga hadlayaa markaa waa sunankii faralku isagu dee wada hadal kuma jiro saaka yaa salaaddii subax misaa tukatay yaa ka seexday yay dhaaftay saaka hurdadu dhaafisay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigan wuxuu kula ballamayaa inuu sameeyo sujuud badni oo macnaheedu yahay inuu badsado salaadaha uu tukanayo faralka iyaga waa la tukanayaa sunanka 12 uu nebigu sheegay iyaga waa la raacinayaa wixii ka badanna waa la tukanayaa markaa ama salaad duxa ha noqoto ama salaatuleyl ha noqoto ama nawaafisha mutlaqa ha noqoto dee 3 waqtuun baa layna yidhi ha tukanina inta kale salaadu waa bannaantay adeedu markay soo baxaysiiyo markay sii dhacaysiiyo markay istiwaa joogto xaadiistii qaarkoodna bacda casarkay ku darayaan markay sii dhacaysa ay casaanka tagto isku soo daro 3 waqti bay culimadu yidhaahdaan baa la yidhi yaan la tukanin 24 saacadood inta kale oo dhan inaad tukataa waa bannaantay inta kale oo dhan wixii aad awooddo inaad tukato lababa adaa u door leh inaad qur-aanka aad xifdisanayd ku tukanayso qur-aanka ku ilaashanaysid
oo markaa qiyaamkaagu uu dheeraado ragcaduna ay yaraadaan haddaad doonto 5 6 7 8 ragcado kooban laakiin aad badiso maxay qiraa'ada cagsiguna waa kuu bannaan yahay haddaanad qur-aan badan xifdisanayna inta aad garanayso inaad iskaga wado sujuudda badisid salaadaha tukanayso oo qur-aanka ilaahay markii nebiga la tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxaa loo tilmaamay yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliilan lagama hadal ragcaduhu tukanaya waxaa laga hadlay maxay waqtiga salaada lagu jiraya inta uu leekaanayo ama ragcada ku badi ama qiraa'a ku badi xataa marka laga warramayo salaaddii nebi daawuud nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay habeenka niska horuu seexan jiray dabeetana ulus buu tukan jiray dabeetana sudus buu seexan jiray dabeetana u soo kici jiray idan waqtaa laga hadlay si awgeed way culammadu waxay idhaahdaan ama ragcada ku badi ama qiyaam ku badi yani ama sujuud badan samee ama qiyaam badan sameeye waqti badan inaad cibaadaysato ayaa muhiima daba haddaynu janno doonayno waxaynu u baahan nahay dee jannadu bilaash maaha inay u diyaar garowdaan oo kow ninka dhallinyarada ah waxa koowaada saarani kow ilaahay cibaadadiisa iyo salaadaasi inuu badsado laba waxaynu odhan karnaa waxa saarani wuxuu yahay inuu dadka si fiican ula dhaqmo oo ugu horeeyo waalidkii xadiidkii jurayj wuxuu ahaa nin cibaado badan oo cibaado u go-ay laakiin hooyadii baa u timi isagoo sawmacadiisii cidlada ahayd ku cibaadaysanaya way u yeedhay jurayjow bay ku tidhi dabeetana wuxuu ihi ummi wa salaati hooye iyo salaadda salaaddiisii buu iska wata maalin kale ay u timo ummi wa salaati buu yihi hooye iyo salaaddii buu iska wata maalin saddexaad bay u timo sidii oo kale way habaartay hooyadii weliba habaar weyn may habaarine dumarka xunxun wejigooda alla ku tus bay ku tidhi isagoo sidaa u cibaado badan oo awliye ah habaarka islaantu wuu ku dhaca dumarkii xunxumaa wejigoodiina alla waa tusay gabadh baa saartay oo tidhi wiil buu iga dhalay ilmo aakhirkii isagana cibaadadiisii badnayd ilaahay waa badbaadiyo ilmihii buu uga hadlayay maxaan uga dan leeyahay salaada aan badinna baan nidhi laakiin salaada inta faralka mooyaane inta kale waxaa ka sii muhiimsan waalidka ateeciisa adigoo sunno ku jira hadday hooye ku yeedho maxaad yeelaysa adoo sunnahii ku jira faralkii baad tukatay sunnihii baad ku jirtaa hooyaa kuu yeedhay maxaad samaynaysaa sunnaha waad ka baxaysaa hooyaad u yeedhaysa oo haddii sunno laga baxay haddaad iska cayaarayso ay hooya kuu yeedho maxaad samaynaysaa markaa waxaad odhanaysaa maan horta cayaarta dhammeeyo ama adoo wax qoraya kuu yeedhay hooya horta qoraalka dhammeeya miyaa waa maya waalidku hadduu yeedho inaad ajiibtaa waa waajib haddii sunno looga baxayo say culammadu sheegeen maxaad u malaynaysaa wixii ka soo hadhay faralka looga bixi maayo laakiin haddii la yidhi sunnaa laga bixi karaa oo waxaa looga baxayaa yeedhmada hooye iyo aabbo adigoo aan sunnaba ku jirin markay kuu yeedhaan maxaad u malaynaysaa ama markay wax kuu sheegaan idinka dhammaantiin xaafada ka wada timaadeen waalidiintii baa joogta salaada dabadeed waxa koowaada idin saarani waa inay waalidka si fiican ula dhaqantaan inaad hadalka ku taagtaagin war uu ka cadhoodo inaad odhanin si xun inaad ula hadal inaad ku dhaga adkaanin waa haddaad janno doonayso janno miyaa hunguri idinka haya mise idinkama hayo ninkii janno hunguri ka haya janno rabaa waa inuu waalidka adeeca markaa darsiga aan maanta idiin sheegaya wuxuu ku kooban yahay waa labada qadiyadood oo qura kow hami sare yeesha hamigaa sare waxa lagu gaadhaya ugu horeeya waa ilaahay taacadiisu ay u horeyso maxay salaada oo badsataan xadiiskii Thawbaan isagana Thawbaanna waa nin kaloo ka mid ah saxaabadii nabiga u shaqeynaysay calayhi salaatu wasalaam mawlihiisiiya
ayaa nin su-aal weydiiyo wuxuu ihi acmaal fiican ii sheego aan janno ku galo markaasuu ka aamusay markaasuu ku celiyey markaasuu ka aamusay markaasuu ku celiyey mar saddexaadkiiba wuxuu ku yidhi calayka bikahrati sujuud nebi maxamed baa wuxuu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam calayka bikahrati sujuud ay ilzim laazim inaad badsato sujuudda sujuud kastoo aad sujuudda derajana kor baa lagugu yeelayaa jannada dembina waa lagaa masaxayaa marka haddaad jannada boos sare ka rabtid meelaha ambiyadu gasho aad raadacaynayso ilaahay xidhiidhkaad la leeday xooji oo idinku dhallinyaratiinoo xoolaha zakaysaan iyo xaja tagtaan iyo waxa ma haysataan waxaa si awoodaan inaad salaada badsataan salaada inaad badsataan oo isaga faral tegistii daaya ilaahay dadka xunxun markuu tilmaamay markuu suuratu maryam nebiyadii marka laga warramay dadka xunxunna ilaahay uu ka warramay dadka xunxun wuxuu ku sheegay fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata watabacu shahwaat waa nebiyada duulka ka soo horjeeday qarribani waa kuwa salaada dayacay naftooda waxay doontana iska raacay darsigu maanta wuxuu ku kooban yahay marka ilaahay xidhiidhkaa la leediin xoojiya noloshoo dhan baa idiin fududaanaysee noloshoo dhan mid adduuniya mid aakhiraba waa idiin fududaanaysaa oo waxa ugu fiicane lagu xoojiyaa waa wasjud waqtarib sujuudoo ilaahay u dhowow waa waxa ugu fiican aadamahana cidda kuugu xaq mudani waa waalidkii ku dhalay waktigan dambe dhaga adkaanto aad bay u badantay laakiin dhaga adkaantaa badan waxaa la socda habaar waalidoo badan habaarka waalid iyo kohashada waalida badanna waxaa la socda dhibta badan ee ummadda haysata hadaad rabto waddan fiican iyo dal fiican iyo dad fiican waxaad ka bilowdaa labadaada waalid inaad adeecdo in lagu duceeyo inaad inkaar qaba noqonin intiinani haddaad khayr qabayaal isu beddeshaan dee waddanku wuu khayr qabayaa markaa ila waa intiinan iyo in la mido une laakiin intiinan oo dhan hadday islaamuhu soo habaaraan waddanku habaar ka bixi maayo marka haddaad rabtaan tan inaynu ku liibaanno iyo ta dambe inaynu ku liibaanno labadaba haddaad doonaysaan maanta waxaan idin farayaa waa labadaa midho qura salaadu iyo idinka geli gebadh horta faral cidnaba ha ku wada hadlina hurdadii baan ka kici waayey hurdada waa laga kici karaya goor hore seexo timetable-kuun bedel imse saacadood baad seexataa 7 8 waxaad doonto seexo 7 8daada un ku qaabee waktiga salaada wakti aan ahayn cidi kuma laha ka yaree seexo 7 iyo 8daba laakiin waa inaad u qaabaysaa wakti aan salaada kaa kaxaynaynin habeenkii haddaad 9 iska seexata maxaa dhacaya dhallinyaradu waxay odhanaya oo waa fiide oo fiidka adiga iyo kugu yidhi soo jeed maxaa kaa maqan hadday fiid tahay yaa yidhi fiidka la soo jeedo hurdada sooma ogidin inay u caafimaad badan tahay inta 12 habeennimo ka horeysa hurdada waxa ugu caafimaad badan inta ka horeysa baa la yidhahaa 12 habeennimo saawgeed buu nabigu inugula dardaarmay haddaa cishaa tukataan ha sheekaynina iska seexda goor hore seexo 9 seexo habeenka ay naftu kaa baxdo 10 seexo 4 habeennimood soo kici karaysaa 6 saacadood 4 iyo barhkood soo kici karaysaa 6 iyo barh saacadood inaad hurdo dee hadhowna bacda duurka saacadda kale ku dar 7 iyo barh ha kuu noqotay ama 8 ha kuu noqotay markaa cidi kuma laha hurdadaada yaree intaad doontaad seexan kartaa laakiin waxaa lagu leeyahay nin raga noqota in taybulkaagu ka gaalada ayuu la mid noqoni gaalkaa habeenkiina soo jeeda waktiga salaadana hurda munaafaqa habeenkiina soo jeeda waktiga salaadana hurda adigu muslim baa ta ilaahay ka cabsanaya idan cidi kuma laha salaada subax waan kici kari war maad kici kari waayina taybulkaa kaa xun maad kici kari waayine taybulkaa kaa xun haddaad taybulkaaga hagaajisado qof waliba uu kici karaya qof waliba hurdada wuu ka dhargaya hurdadiinana ka dharga salaaduhuna yay idinka tegin 5 salaadood yay kaa tegin sunanka raacayay kaa tegin
sunanka kale dheeraadka iyo kaa tegin intaa waxaad ku dartaa waalidkaa inaad adeecdo waxaad dhigataana markaa waa kuu fududaanayaan aakhiriya adduunbana waad liibaanaysaa sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin الحمد لله رب العالمين به نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خير الله سي الشيخ مصطفى وعدي وناكسن من السي خير الله كسيو إن أنا رب سبحانه وتعالى كو أنفع كو انتفع الله إن قدقه مركز ده وعدي وديه أنت شيخ من وشك وعدي كليه هي بس waxaan u baahnaa kulli waxa inoo sheeg kulli inuu fiican waa wada garanaynaay bas aan ku darno ducada aan ku darno kulli waxaan doonaysay wada bedeloon fiicnaano laakiin maxaan inta ku darna sheekhu inoo sheegay aan ducaysanayna waxaan oranaynaa wa iyyaka nastaciin sama iyyaka na'budu wa iyyaka nastaciin waa maxay ilaa adiga ku caabudayna sama adiga ma ku caabudayna wa iyyaka nastaciin waa maxay adoo ma kaalmo ku weydiisana marka ducadana ku adkeeyo inta la idin sheegay madaxa ku qaata maanta waxaad isku daydaa jadwalkaaga inaad bedesho eeg hada amal falka diinta dib looma dhigto hadii alla waxaan ka sugaynaa ama iska wada sugaynaa kulligeenba insha Allah caawa jadwalkaaga inaad bedesho oo aad salaada aad wax ka tukato cishaaga marka tukato inaad witridii tukato ugu yaraan barto xogaa dhowr ragcaad iska tuko salaada subaxna inaad ku habeen walba ku seexo subaxda salaad subax u kacdo insha Allah aan dadaal ducadana aan badino laakiin nabigu Mucaad saxaabiga Mucaad muxuu ku yiri Mucaad waan ku jecelahay salaad kasta marka tukato waxaad tiraahdaa Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik marka ducooyinkaas oo kale waa la bartaa waa aad baa loogu ducaystaa sababtoo Ilaahay ku kaalmay adna dadaasho waad soconaysaa لكن هدي إلهي بري ويدو قابس بدن بك وجري ما إن شاء الله تعالى خير بدن ما يدير جيننا الله نوع أنفع وحي وعدي أنه ماشي كل جيسني إن شاء الله حنمر أنا وقت حسده الجري ويه حسده الجري دونتان وحن إن شاء الله ما مله نولي بدون هدي الله يراهضه وجزاكم الله خيرا قلنا سيها شيخ مصطفى شيخ محمد runtii dugsiyada alfurqaane ee facoogu weyn yahay arday badan ka foostay faracyadu u kala baxo aan faahfaahiye maqal oo dhagaha u furo dugsiyada alfurqaan schools fasalada dugsiyada sare dhexe fowjajiisi intaasoo dhan oo farac kuu furay albaabada fursad weeye qaaliye ku fayli ubadko ka faa'iideyso oo gaadh dugsiyada alfurqaan schools